dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeenan dadegay inaydan dareemayn kula wacan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay ku soo dhawaada barnaamijkii maan hadal haddaynan isdaynayn maan hadal oo jimco walba aad uga hadallo hadba mawduuc markaasi mudan in si qoto dheer ay u lafaguraan dad aqoon u leh maanta waxaan uga hadlaynaa golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay meel mariyay qorshe dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud doonayso in doorasho dalka ay uga dhacdo qorshahan ayaa dadka dhaliilisan xukunka madaxweyne Xasan Sheikh waxay sheegeen inuu yahay mid uu xukunka ku sii joogi rabo madaxweynaha talada haya oo ah doorasho ka dhacda qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan magaalooyin cayiman oo amnigooda ay amisom sugaan qorshaha madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu meesha ka saarayaa doorasho wadaro gol ah oo ka dhacda dalka waxaana qorshahani la sheegay inuu caqabad ku yahay dhinacyo badan oo han siyaasadeed kale hogaaminta dalka haddaba iyada oo hadda uu 20 jirsaday nidaamka federaal ee Soomaaliya qaadatay sanadkii 2004 shirkii Embagati ka dhacay halkee maanta ayay Soomaaliya joogtaa maxaa laga bartay federaalnimada caqabadaha hortaagan iyo fursadaha sii jiritaanka federaalnimada ee Soomaaliya inta ay gaarsan tahay maadaama madax kala duwan oo dalka soo maray iyo kuwa hadda shaqeeyaba ay ka shaqeeyeen wiiqitaanka nidaamka federaaleed ee lagu heshiiyay mawduucyadaas ayaan uga hadlaynaa barnaamijka manhadal ee maanta oo ay marti ugu yihiin aqoon-yahano iyo siyaasiyiin si dhow ula socda mawduucan oo kala ah aqoon-yahan Axmed Saciid Aw Nuur oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland kana faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo geeskaba wasiir Maxamuud Caydi Dirir oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland oo ah maamulkii ugu horeeyay ee federaal wasiir Caydi waxa uu ka soo noqday marar kala duwan wasiir isagoo haddana wasiirka waxaana inta badan uu difaacaa mabaadi'da federaal ee Soomaaliya ay heshiiska ku tahay iyo aragtiyaha Puntland aqoon-yahan Ashkir Nuur oo ah aqoon-yahan shahaadada PhD da haysta qoraa iyo siyaasi in badan wax ka qoray arrimaha federaaleynta ee gobolka Geeska Afrika guud ahaan si gaar ahna kan Soomaaliya ayaa isaguna barnaamijka martidiisa kamid ah Garowe ayuu igala hadlayaa waxa kale oo barnaamijka igala qayb galaysa Dr. Naciima Cabdiraxmaan Guuleed oo kamid ah haweenka siyaasadda ku jira ee Soomaaliyeed waxay soo noqotay wasiirka haweenka ee Puntland ee Nairobi ayay khadka kaga jirtaa dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka man hadal khadaraad baad u mahadsantahay waa dhowahay martida dhammaanteedna waa salaamaya waa dhownahay hadal waa mahadsantahay mahadsanid walaal waayahay aan ku bilaabo wasiirka ayaan rabaa inaan ku bilaabo bal ugu horeyn warka shalay soo baxay iyo nidaamka federaal ee Soomaaliya 20 jirka ah haddana aan wali qaangaarka u muuqan aragtidaada ku aadan war naga sii khadar waad iyo aad baad u mahadsantahay waa ku salaamaya adiga bahda daljir marka sharafta dhammaanteedna waa salaamaya barnaamijka ka qayb galaysa waxaan kaloo aad u salaamayaa dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo si fiican iyo si dhow barnaamijka maan hadal ee jimcaha toddobaadlaha maalinta jimcaha soo baxa ula socda oo ah isha wararka siyaasadda falaqeyntooda ee Soomaaliya ee hadda jirta aad baad u mahadsantahay khadar arintaas haddaan iyo dib u noqono sanadkii 2012 bishii maartay 12aad Soomaaliya waxa la saxeexay dastuurkeedii ku meel gaarka ah in yar ka hor markii la qabtay oo ay muddo soo socotay oo la qabtay shirarkii Garowe iyo Garowe ku iyo Galkacyo Accord wuxuu ku soo gabagaboobay dastuurka ku meel gaarka in maartay dawladii markaa jirtay ku meel gaarnimada ay ka baxdo oo dawlad rasmi ah loo aqoonsado dastuurkaas 1 2 3 4 5 6 7 toddoba saxiix buu lahaa dastuurkaasi maartay waxa saxiixay maartay Mahiga oo wakiilkii Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ahaa waxa saxiixay maartay Sheekh Maxamed Maxamuud Yuusuf oo wakiil ka ahaa Ahlus Sunnah wal Jamaaca waxa saxiixay Mudane Axmed Caalim oo madaxweynaha Galmudug ahaa waxa saxiixay Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud madaxweynaha dalka Puntland ee xilligaas ahaa oo 2009 la doortay waxa saxiixay Mudane Cabdiweli Gaas oo ahaa ra'iisul wasaarihii markaa Soomaaliya dawladda ku meel gaarkeeda jirtay waxa saxiixay Sheekh Shariif oo ahaa madaxweynihii dawladda markaa jirtay waxa saxiixay Sheekh Aadan Madoobe
oo ahaa isna gudoomiyihii baarlamaanka ee markaa jiray waxaa la filayay in markaas maartay ku meel gaarka dawladda laga saarayo in la fuliyo mabaadi'dii federalismka ah ee lagu heshiiyey oo sharci ahaan loo saxeexay siyaasad ahaanna ay maragu noqoto in la isla saxeexay dawladdii ugu horeysay oo dalka lagu doortayna baarlamaankii lagu doortay muxuu ahaayay ugu horeeyay dalka gudihiisa lagu doortay 135 kamida madax dhaqameedka kuwa ugu taariikhda dheer Soomaaliyeed la isu keenay oo baarlamaanka xuleen 825 erga Soomaaliyeed la isu keenay oo ay aragti dastuurka ka dhiibteen halka waxa la filayay in la iba furay dawlad Soomaaliyeed gudaha lagu doortay dastuurku meel gaara oo dawladdii u aqoonsaday dawlad rasmi inay tahay in la isla saxeexay dastuurka in la dhameystiro wixii ku qoran dawladnimada nidaamka federalismka lagu dhiso nasiib darro waxay ka dhacday madaxdii kala dambeysay oo ay ugu horeyso Sheekh Shariif Yar markaasi hay xasankii koowaad iyo xasankii labaad iyo farmaajo oo isaga dambeeyay xilalka 3 jeer oo isku xiga noqday uma dhacsanayn uma qurqursanayn arrinta federalismku waxay ka doorbidayeen dawladdii hore ee loo bartay oo awood hal meel ku urursanayd oo hal caasimad iyo hal xukun iyo hal madaxweyne taladu ka go'aysay bay badankoodi doonayeen taas ayaa sabab u ah inay maartay horta fuli waayeen nidaamka federaalka ta ugu daranay maanta maraysa waxa weeyaan waxaanu maqalaa dalalka Afrikada galbeed afgambiyaha ka dhaco muxuu ahaayay saddex xarigle iyo kabtan iyo baa xukunka la wareego oo madaxweynaha intuu dilo dawladda kala yaaciyo madaxweyne noqda baarlamaanka Soomaaliya shalay oo bishii April maartay aan filayo koodeedii inay ahayd madaxweynaha hadda jooga xilka ka qaaday dastuurkii lagu doortay markuu baabiyay iyagoo xil la'aan bay noqdeen muxuu ahay madaxweyne waxa uu doono sameeyaa isaga baarlamaana isaga aqalka sare isaga ra'iisul wasaare isaga wasiir ah isaga ambassador ah isaga qonsul ah isaga agaasimo guud ah isaga xogeeye joogto ah wax kasta dalka kaliya baa ka nasiib darro maanay garanin maalintii xilka ka qaadayay waxa uu soo wado oo dhan inuu waxa isagu shaar u leeyahay inuu tolanayo oo xukunka dalka isagu isku filaysiinayo oo kaliya ilaa uu ka dhimanayo tiiba markaa shalay cadaatay inuu doonayo markuu yiri dalka doorasho laga qaban doona dalal amni ahayn oo habeen saddexaad waa garanaysaa villa Soomaaliya lagu kala yaacay oo madaxweynaha laga saaray oo ra'iisul wasaaruhu ka cararay oo leeyahay waa intaheeda la isku qarxinayaa xitaa saraakiisha gudaheeda ku jirta qaar baa al-shabaab oo dadka layn doona dawladda halka maraysa waxay ku riyoonaysaa oo inta loogu yimi maartay dalka intii kale oo dhan la soo dhaafay xeebta liido 200 iyo dheeraad Soomaaliya lagu laayay hilbahoodii aydu cunayso la daawanay xitaa hilbahoodii la ururin waayay yani waxay tusaysaa inay tahay يعني محو هاي مرين هبابين iyo riya maalmeed kaliya inay tahay baa tusaysaa dadkii kale oo loo doortay xilalka kitaabka gacanta saarayna yani xilalkoodii inuu kala wareegay arintaasi arin aan dhici karin inay tahay inuu yiraahdo doorashaan qabanaya ama soo ilaalinayso dhowr magaalaan ka qabanaya haday doorasho dhici weydana qofka xilka joogay baa xilka sii haynaya macnaheedu wuxuu leeyahay war kaliya baa xilka haynaya intaan ka dhimanayay Soomaaliya ogaada bulshada yiri marka dadka Soomaaliyeed baa tala u taala laakiin nidaamka federaalku meel looga noqdo oo dambe ma taalo waayo dawladdii horena soo aragnay awoodeedu hal gacan ku jirtay burburkii soo aragnay kuwii xasankii koowaad iyo labaad oo fulin waayay federalismka aragnay meel loo noqdo ma joogto gaar ahaan dadka reer Puntland muxuu ahaayay adeega bulshada hadda gaaro institutionada dawladeed oo hana qaaday ay ka jiraan maartay ay ka jiraan horumar maartay adeegii bulshada oo kaabayaashii dhaqaalaha oo garoomadii iyo dekedihii iyo ay ka mid yihiin wadooyinkii ay ka mid yihiin oo ceelashii iyo biyihii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii dadku ilaa heer tuulo ay haystaan oo la rabo in la hormariyo oo maartay heer la gaarsiiyo yani muxuu ay helaan adeeg hufan oo wanaagsan oo ku filan oo qof wal gaadho amaankooda la damaanad qaado siyaasadana loo tartamo dadku qofkii ay doonayaan ay doortaan oo golayaashii deegaanka 30 iyo maartay 6 degmo hadda la dhameeyay insha Allah inta kalena la qaban doono waxa la filayaa ay tahay doorashada ugu soo horeyso qof iyo cod madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan lagu doortay baarlamaan lagu soo doortay inay soo baxaan waxaan maartay ku bixinayaa wadadaas ay cagta saareen meel looga noqon kara inaanay jirin waa mahadsantahay waayahay aan soo dhaweeyay Axmed Saciid aw Nuur soo dhawo Axmed bal wasiirka wad maqlaysa warkiisa dhinacay ka taagantay adigu والله هذا محوها خضر ومكو ورئيسة وبسلام يا وزيرك إيو أخيارتك لا أو جدا محوها دكتور عشكري إيو قبل نعيمة وزير دي هوري إيدنا وسلام يا إيو عشكري سنو وزير هروها دكتور رير بولان يومد الصومالية دون نجي سنة وسلام يا
anigu wax kale kama taagniye waxaan ka taagnay horta aniga waxa ii muuqataa waxa weeye nidaamkii federaalku runtii waa dhashay waana socod barad baan anigu dhihi lahaa laakiin weli ma shaqayn Soomaaliya marka la yiraahdo ma shaqayn mana hirgelin sidii la rabay ma hirgelin qalfoofkii waa jiraa dawladda yani federaalka Soomaaliya waa jiraa oo xamar fadhida maamul goboleedyo waa jiraan laakiin nidaamkii federaalka iyo dastuurkii maaragtay federaalka ahaa weli waa qabiyo heshiisna laguma aha dhibaatooyinkaasu dhibaatooyin jira weeye waxa kaloo ii muuqda aniga waxa weeye muxuu ahaa khadarow dawladnimadii baa shaqayn la Soomaaliya dawladnimadii baa shaqayn la federaalkuna waa habkii dawladnimada oo Soomaalidu qaadatay marka waxa weeye ukunta iyo digaaga keesi soo horeeyay hadii la yiraahdo iyada ruuxeedu waa arrin kale oo meesha ku jirta anigu waxaan qabaa dawladnimadii Soomaaliya waa shaqayn laadahay dalkii Soomaaliya weli ku meel gaar buu ku jiraa aniga aragtidayda maxaa jira dal aan weli dastuurkiisa la dhameystirin oo lagu heshiin waa ku meel gaar halka aan iska dhigno yani ihsaanka ay bulshada caalamku inoo sameysay oo tiri ku meel gaarnimadii waa idinka saarayna iyo waxa laakiin aniga waxaan qabaa inaan weli Soomaaliya ku meel gaar ka bixin nidaamkii federaalka inaan weli la dhameystirin tan hadda wasiirku ka hadlay oo maaragtay dawladdaas iyo barnaamijka shalay soo baxay iyo waxaasna aniga waxay la tahay waxay iskaga dhamaan doontaa meeshii ay ku dhamaatay 2022 bay ku dhamaan doontaa maxaa jira 2 sano hadda hartay barnaamijkaas hadda dawladdu ay soo qaaday waxaad moodaa inuusan barnaamij Soomaaliya ka hirgeli karay ahayn wixii dawladdii hore sameysay oo shalay lagu la diriraayay oo lagu kacay oo hadda madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha halkaan iyo madaxweynayaal kale iyo ay kula diriraayeen oo lahaayeen doorasho ma dhici karto waxaan doorasho lama qaban karo wadankii ammaan maaha gacanta kuma jiro tii baa haddana muuqata mara ilaaha aniga inay shaqaynayso midda kaliya oo iga muuqata waxa weeye mucaarad abaabulan hadda oo dawladdaas xamar joogto ku abaabulan oo sidii waagii ay u abaabulayeen u abaabulan ayaga ima muuqdo laakiin waxaan isleeyahay arrintaasuna doorasho hadeer ka dhici mayso Soomaaliya heshiisna laguma aha dastuurkiina heshiis laguma aha marka waxaan isleeyahay waxa weeye sideedii hore isaga dhamaan doonto arrintan federaalkuna waa bilow waa ilmo dhashay hadda socod barada 20 sano waxaa la rabay inuu ordaayo xoog leeyahay laakiin nasiib darro maradaan dawladnimadiiba shaqaynayn hadda federaalkiina shaqayn lahaa intaasaan ka dhigi lahaa qadar waa maatan waxa mucaarad abaabulan ma jiro macnaheedu waxa loo fasiran karaa marka inaad u jeedo xasan madaxweyne xasan wixiis waa u hirgelayaan maya waa u hirgelayaan kuma lihi laakiin markaad ka fiirisid 2022 siday wax u abaabulaayeen oo dawladdii markaa jidhay oo nidaamkan xasan waxa moodaa inuu soo koobiyay wixii dawladdii hore ay sameynaysay exactly sideedii inuu soo koobiyay oo maaragtay ilaa hadda xeerkan xisbiyadan iyo waxaan iyo waa tii waaga ruuxeeda la qoray waa tii isaga ruuxiisa u diidanaa oo ka hor yimi tii buu maanta soo cusboonaysiiyay isagana waxaan u malaynayaa inaan Soomaalidu ka yeeli doonin waxay shalay adigu waxa diidanayd maanta laga yeelo waa adkaanaysaa dadku laakiin mucaaradka waxaan uga jeedaa waaga Puntland baa mucaarad ahayd Jubbaland baa mucaarad ahayd oo taagneed oo qaylinaysay waa laba maamul goboleed oo xoog leh elite fara badan oo xamar ka soo jeeda iyo gobolada dhexe baa abaabulaa oo shaqaynayay oo maaragtay dawladda aad baa ligliga loo haystay marka la fiirsho xilliga hadda jira marka hadda waxaan isleeyahay hadduusan mucaarad xoog leh soo bixi doonin weli mucaarad saas oo abaabulan aniga ima muuqdo marka laga reebo waa jiraan in Sheekh Shariif iyo madaxweynihii hore Farmaajo iyo dawladdan Puntland iyo ruuxeedu dawladdaas ay iska hor yimaadeen inay jirto laakiin weli arrimuhu sidii la rabay isugu dubaridnaan isleeyahay waa mahadsan tahay waayahay Dr. Naciimo ayaa rabaa inaan soo dhaweeyo soo dhawow Dr. Naciimo maxaad ku daraysaa adigu arrimahan aad baa u mahadsan tahay walaal khadar waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan maan hadal waa barnaamij aad u muhiimsan
وسلام يا وزيرك يا خيارتك كله وزير أشكر يا ولالك أحمد أنا waxaan rabaa horta inaan qodob yar oo muhiim ah inaan ku bilaabo oo ah markii Soomaaliya aynu qaadanaynay nidaamka federalismka shirkii Imbagati 2004 horta waxay ku fiicnayd marka in afti dadweyne la qabto lamana qaban karin oo marka waa la ogaa xaalad dalku iyo hadda soo ku jiraba inay tahay iyadoo nidaamkii federalismka aan la fahansanayn baa la qaatay oo la yiri nidaamkan waa la qaatay mana uusan socon hadda oo maanta in badan laga joogo ay ka soo wareegtay waxa hadda muuqata maamul goboleedka Somaliland waxa uu yiri anagu waaba go'nay oo waxaan nahnay dawlad madax bannaan Puntland hadda waa diidan tahay oo waa ka soo horjeedaa nidaamka Xasan Sheikh maamul goboleedka kale soo haray oo hadda Soomaaliya waa maamulo aan wadaan dhihi karo awood badan aan lahayn oo markastaba waxay la jirsadaan ama la socdaan xukunka markaa fiila Soomaaliya jooga ama madaxweynaha markaa jooga waad ogtihiin in dastuurkii la yiri waa la bedelayaa iyadoo aan heshiis lagu ahayn la isaga imaan laga wada hadlin in la yiri waa la bedelay oo doorasho qof iyo cod ah buu dalku aadaya doorasho qof iyo cod markii dal qabanayo ama aadayo qodobka ugu muhiimsan waxa weeye dalku inuu amni yahay sanduuqa la dhigo caasimadda Muqdisho waa inuu yaalaa calo la dhigaa Hargeysa la dhigaa Baydhabo la dhigaa isku mar uu furmaa oo shacabku si nabad ay u codeeyaan taa ma dhici karto oo waynu ognahay gobolka Banaadir baan degmooyinkiisii xataa doorashadii qof iyo codka ahayd oo golaha deegaanka ah baan laga qaban karin waa sida anigu ra'yigayga siyaasi ahaan aaminsanahay waxaad moodaa marka madaxweyne kasta oo hadda fiila Soomaaliya yimaada ama ha ahaado madaxweynaha hadda jooga ama madaxweynaha ka horeeyay mid walba wuxuu xoogaa isku mashquuliyaa inuu dhaho doorasho qof iyo cod baan qabanayaa aad iyo aad baan uga xumahay baarlamaanada markasta meesha jooga ama mas'uuliyiinta ku matalaya Soomaali deegaanada kala duwan kama fakaraan dadka maxaa muhiim u ah dalka see la isugu hayn karaa maxaa dana ah maxaa socon kara oo markaas bulshada Soomaaliyeed xaqiiqatan la qaban kara oo doorasho lagu qaban kara oo dhici kara waxay ka fakaraan oo sida xilka lagu sii joogi lahaa hindisaha sharciyeedka shalay soo baxay aniga wuxuu ii muuqdaa ama aan u arkaa in muddo kororsi lagu raadinayo laakiinse doorasho inaysan dhici karin waa loo jeedaa waana muuqan karaa qodob kamid ah wuxuu ahaa guddiga doorashooyinka baa la yiri baa soo gudbinaya oo waxay dhahayaan dalka hadaysan doorasho ka qabsoomi karin ama amni xumo ah ahaato ama disaster dabiiciya ha dhaco iyaga ayaa soo gudbinaya oo markaas xadidi doon waqtiga doorashadu dhacayso inta aan laga gaarinna xukunka marka mas'uuliyiinta haya baa si joogaya oo fadhinaya taa maxay keeni ka dhawral baaleeda waxay keeni ka dhac qalalaase ka dhaca dalka oo si kala go'a Soomaali oo si kala fogaata Soomaali awal baa hore loogu hayn waayay walaal hal meel baa leedinka maamulaya horay baa la isu diiday maanta waxa loo baahan yahay Soomaali way jabsan tahay waajibtay waa burburtay waxa la rabaa in la isku keeno si kasta oo la isku keeni karana anigu waxaan aaminsanahay loogama fadhiyo madaxweynayaasha maamul goboleedada qofka looga fadhiyo inuu isku keeno Soomaali waa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud isaga ayaa mandate haysta ilaa inta laga gaarayo May 15 2026 inta ka hor baa waxa la rabaa inuu qabto doorasho ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay hal maalin oo muddo kororsiina haduu yimaadana deeqalaasa imaanaya iyo dhibaato xoog la dalkan ka dhacaysa aan hore uga dhicin mana fiicna walaal saan waan isleeyahay waa mahadsan tahay waa yahay ashkar ayaa rabaa inaan soo dhaweeyo ashkar doorasho muddo kororsi lagu rabo ayay tiri warkii wasiir Naciima maxaad ku daraysaa adigu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وبعد وهورين waxaan ku bilaabayaa horta marka hore in aan ka hadalno arintii aan maaragtay mowduuc dood ee wadatay oo ahayd federalismka sida ay muuqata anigu waxaan u arkaa in nidaamkii federaal ama federaaleyntu dalku uusan waxba ka hirgelin oo ka socon sababtu wuxuu ka hirgeli waayeen waxa weeye dadka qaar yimi xukunka Soomaaliya ayaa waxay ku noqdeen caqabad in nidaamka federaalka uu hirgalo haddaan tusaale u soo qaado labadii maaragtay xukuumadood ama dawladood iskaga kala dambeeyay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya
labadii madaxweyne ugu dambeeyay labaduba waxay dagaal ku hayeen ama ay burburinayeen nidaamka federaalka sida aan u jeednaba runtii khadarow haddii xaqiiqada loo hadlo federaalku maanta waa uu 20 jirtay saa hore u sheegtay 2004 soo bilaabay haatan waa 20 sano 20 sano meeshii la rabay in federaaleynta dibadda loo taago oo xididadii federaalka ama seeskii federaalka aad loo adkeeyo la dhiso bedelkeed wax la sameeyay ma lahan federaaleyntu sideeda ma federaal waxa asaas u ah 6 shardi horta koow inay jiraan si uu federaalku u hirgalo laba gobol iyo ka badan koow horta inuu jiro dastuur dalku uu leeyahay oo federaal ah in ma aragtay qolana aysan xukunka dawlad goboleedada ama dawladda dhexeba qolaba ay si gaar ah aysan u qaadan kuwa kale aysan hangool ku qaban waa shuruudu kamid yahay waxa kaloo shuruuda kamid ah inay jirto maxkamad dastuuri ah waxa kaloo shuruuda kamid ah waxa weeye inuu jiro qawaaniin ama xeerar kala haga qaababkii xiriir dawladaha waxa weeye xubinta ka ah dawladda federaalka iyo dawladda dhexeba intaba waxaad u malaysaa inaysan waxba ka jirin mid haddaan usoo qaadano يعني واحد جرى دولة قبل ده حتى عن وافقسنين نظام كي سيستم كي لو قلت لقلي أهلا بقبل أي واحد كبضن تاسوي جيران أو واحد وحمانت كل هذا لنا معها واحد جرى أو كلا واحد دستور كي لو قلت لقلي ضد كإنه كلا هجو ما أنت وجد دستور كي وحنا قضي ورقد وما عرفت واحد يقصر داعي يعني أراه ونن ما عرفت رجل بيضة وكقري دستور ما عرفت دولة لها الإسلام كا أما الدولة لها عرفته وحوي دستور من ورق دستوره أو وحبا معنا عن كدجنين أو ورقة معها قد لو حريق كري أيهين خضروا ومضى تاني نو حاجة للأورنج عبد الرحمن الكواكبي وحن حسوس عبد الرحمن الكواكبي وحا وقريب بوق وأبحيي مصارع الاستعباد ضبائع الاستعبادي ومصارع الاستعباد ضريعها كلية تلسكا يعرف دمبيسكا أدونسيكا وحو شاقي نكاسي مدو باراي ومضان داود إذا حانون كذا وحو يري حانونك ومضان هايستا وحوي الاستبداد وكلية تلسنمو ودواء داود يسنوعي وحا لنكا لأوكالية دفعه بالشورى الدستورية إن لغو داويه شورى دستورية سيدا نومو قطمانت شورى دستورية مجران وحوي مدحوينية دالك أيانكو ميل فريستي نمان انتو يارتي دورة قبل يدك لما ضحكا waxa uu sameysanayaa asaga wax ku filan oo asaga uu qoranayo wuxuu meesha ka saarayaa fiir qodobadii asaasiga ah wuxuu ku tuntay saan ku sheegay qodob dastuurkiina waa ku tuntay wuxuu kaloo ku tuntay in qolo gaar ah ayaan isa siin dawladnimada taasina waa mabda' kaloo ay lahayd federaaleynta lixda ah oo ku tuntay marka lixdii tiir oo federaaleyn oo loogu talagalay in ummadan lagu hago lixdii tiirba waxaad moodaa in weerar lagu yahay sidaa daraadeed aniga waxa ii muuqata haddii la rabo xal in loo helo Soomaaliya oo nidaamka federaalka uu taabagalo waa in wixii lagu heshiiyay la taabagaliyaa oo la socodsiiyaa haddaysan taas u dhicin waxaan ka baqayaa federaaleyntu aan ka sheekeynayno oo aan rabno oo ah nidaamka ugu fiican saan u arko aniga ee xukun ee dunidan lagu dhaqi karo waayo 40% shucuubta adduunkan ku nool waxay ku dhaxnooshahay nidaam federaal oo jira 25 dawladood ayaa jirta nidaamkan federaaleynta ah marka waa nidaamka kali ah ee kala xadida awoodaha qolada dawladda dhaxana awood siiya dawlad goboleedana awood kala siiya inta waxa ku sii dheer federaal marka la rabo in la sameeyo waxa jira sabab keena federaaleynta in la sameeyo sababihii keenay federaaleynta in la sameeyo Soomaaliya way haysataa dal laga baayo inuu kala go'o ayaa federaalnimada lagu hayaa federaalnimadii aan u aragnay xalka iyo dadka inuusan kala googin baa nin ku dhiiranayaa 20 sano ka bacdi inuu dalkii kala jarjaro uu kala googooyo uu kala qoqobo runtii waa wax aad loogu xumaado waa maasanta wasiirka ayaan rabaa inaan soo dhaweeyo dhageystayaashana fursad baan siin doonaa wasiir xeerka shalay soo baxay oo kale haddaan tusaale ka soo qaadano waxa uu dhigayaa in guddiyo doorasho la sameeyo xisbiya siyaasadeed dalku yeesho dadkuna ay soo doortaan matalayaashooda siyaasiga ha ahaato madaxweynaha ama xisbiyada siyaasiga waa mawduucii ama mabaadidii Puntland oo ololeynaysay sanadihii u dambeeyay Soomaaliya la dhihi karo oo doorasho qof iyo cod golayaal deegaan xataa looga qabtay inay hadana ka soo horjeestaan isla mawduucaad riixayseen maxaa loo akhrisan karaa khadra waad mahadsan tahay waa aragti fiican runtii laakiin waxa weeyaan afwaakana may lagu aamay bali
afwaakana maxaa lagu cunayaa doorasho waa la qabtaa sidee doorasho loo qabtaa waxaa laga hadlay nin baa waxaa lagu yiri laba falaarood oo ku dhacay tee laga fujiyo war aan fariisteeta salka horta iga barida iga taal horta la iga fujiyo si aan dhulka salka dhulka u dhigo dalkii baa faraha ka baxay kila Soomaaliya amaan darro lagu kala yaacay xamar baa afaafka laga fadhiyaa ciidamadii dalka al-shabaab dhameeyay sidee waxaa ka horeysa horta in la helo ammaan laba qof oo Soomaali isu iman karto 10 qof inay is aaminaan inay meel isugu yimaadaan oo aanay kala shakiin mid ka mid inuu ka kala qarxinayo waxaa ka horeysa horta in sharciga laga heshiiyo siyaasadana laga heshiiyo dalku ammaan noqdo dawladda gacanta ku hayso dadka ay diiwaan gelin doorasho u tira koobi karto wax badan baa ka horeeya laakiin nidaamka shalay muuqday wuxuu u eg yahay muddo kororsi buu og yahay Puntland way u doodi jirtay asbaabtay ugu doodaysana way samaysay amaanka dalkay sugtay dadkay doorasho u diiwaan gelisay asxaab siyaasadeed bay furtay muddo aan ka yarayn muxuu ahaa 15 sano nidaam soo jiitamayay uu ahaa afar dawladeed isku dayeen dawladda Cabdiraxmaan baa isku dayday dawladdii ugu horeysay baa 3 sano gudahood ku baaqday Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariis madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf in 3 sano gudahood qof iyo cod doorasho loo gudbo muxuu ahaa dawladda Cabdiraxmaan baa isku dayday dawladda Cabdiwali baa isku dayday dawladdii hore muxuu ahaa danigii koowaad baa isku maartay hirgelay qayb kamida danigii labaad baa dhameystiray doorashii maartay golayaashii deegaanka haddana shuruucdu u diyaarsan tahay komishinkii doorashada hadda jiro oo permanent ah waxa jirta maxkamadii dastuuriga ahayd baa jirta oo wixii la isku qabsado kala saari doonta yani wada dheer bay soo martay Puntland u soo martay tii wadada dheer ay u soo martay qof aan waxba qabanin oo xitaa qalin iyo warqad istul saarin inuu yiraahdo doorashaan qabanaya xukunkan ku sii joogaya afkaan ka sheegaya inaan doorasho qabto wax ficilana ma samaynayo doorashadana markay xilligeeda la gaaro baan oranayaa doorasho lama qaban karo xukunka xaq baan u leeyahay inaan sii joogo taas waa fadeexad waa iimaan la'aan waa afgambiyada qaaradda Afrika dhinaceeda galbeed ka dhici jiray oo laba aliflayaasha iyo sadexrilayaashu samayn jireen iyo kabtanadu weeyaan waa tii oo kale weeyaan socon mayso lana yeeli maayo ayaan dhow isagoo gundaha dhig kule oo aan May maartay 15keeda 2026 isagoo gaarin gundaha isagoo dhig kule buu ka tagi doonaa xukunka maxaa ula jeedaa wasiirtaas waxaan uga jeedaa dadka Soomaaliyeed miyay aqbalayaan inta la qarxiyo in hilibkooda ay cunto oo caruurtoodii ilmadoodii aabayaashoodii iyo walaalahoodii ee doonkood ay arkayaan hilibkooda ay cunayso miyay daawan karaan ma wax la daawan karaa dadka Soomaaliyeed way baraarugeen xasan waxa loogu iman doonaa meesha uu ku jiro waa maasantahay wasiir waa yahay Dr. Ashkir baan rabaa inaan ku soo laabto Dr. soo dhawow Puntland isla su'aashan wasiirka weydiiyaa rabaa inaan wax ka weydiiyo Puntland doorasho qof iyo cod ay aaday golayaashii deegaanka la doortay xisbiye 8 jira baarlamaanka kan xiga ayaa la filayaa in lagu soo doorto doorasho qof iyo cod in gobolada kale ee horumarka Puntland ay ku talaabsanayso ee dalka la gaarsiiyo oo heer qaran laga dhigo reer Puntland maxay u diidan yihiin hadii dadka Soomaaliyeed dhahaan ma su'aal khaldan ba soo dhaw waa su'aal fiican su'aasha ay weydiisay qadarow laakiin haddaan si lillahi u hadalno waxa weeye Puntland يعني وزيرka dhameeyay oo sheegay arintaasi mar raba in badan inaan ku laabto laakiin waxa lagu soo guunaanadi karaa waxa weeye Puntland process-kan waxay ku qaatay 25 sano inay fuliso furuudii loo baahnaa in lagu fuliyana way la timi maanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay ka yimaadaan markay garow yimaadaan ama ay magaalo kamid ah magaalooyinka Puntland yimaadaan oo hadlayaan hadalkooda waxay ku yiraahdaan oraah kulligood aad moodo inay ka sameeyeen oo ah waxaan socday min kalkacyo ilaa Boosaaso si amni ah waliba xilli habeenimo ah dhul saa loo mari karo oo saa amni u ah macnaheedu in ay ka hirgeli karto dimuqraadiyad lana wadi karo waa wax meesha ku jira oo ciidan isma weydiinayso taasi waa hubanti weeye marka Puntland waxay la timi qaababkii iyo nidaamyadii oo dhameystiran oo lagu sameyn lahaa doorasho qof iyo cod ah waxa ay Puntland ku doodayso ma ahan anigu sida tahay inay tahay waxa weeye aniga kaliya sameeyay kuwaasna sameynay macnaheedu waxa weeye ma la rabo in la maran habiyo دكتور ما مقلسه waa ka go'ay ayaa filaya way soo dhaw Axmed ayaa rabaa inaan nasiiyo hore ka siiyo doctorka oo ku soo laabanayna khadka ka go'ay hadana su'aashu maxay su'aashu waxay ahayd wasiirka iyo Ashkir baan soo weydiiyay Puntland doorasho qof iyo cod ayay aaday oo golayaashii deegaanka hadda lagu doortay baarlamaanka kan xiga la filayaa in lagu doorto
heer Soomaaliya reer Puntland inay markaa in doorasho qof iyo cod la gaarsiinayo inay saluugaan maxay ka dhigan tahay iyadu oo maxay u diidayaan والله ده reer Puntland anigu waxaan qabaa xilliga mandate-ka oo Xasan Sheikh u haysto ilaa May 2026 hadduu doorasho ku qabanayo cidna dacal kuma haysato laakiin waxa weeye tii dowladaha hoose ay iclaamiyeen ma ay qaban waa la socotaa soo maaha qadarow marka walaacaas baa iska jira waxa kan in ujeedo kale laga leeyahay maahane anigu ma qabo dadka Puntland wax wanaaga inay la necab yihiin dadka walaalahooda Soomaaliyeed ma qabo arrintaana markaynu runtii si waaqici uga hadalno anigu hadaayana waa sheegay muddo kororsiga la sheegay iyo sidii waagii farmaajo ay ku dhamaatay bay iskaga dhamaanaysaa waxbayaan waqti la iskaga lumin hal sano ilaa hal sano iyo bar kale tuu Xasan Sheikh rabaa inuu iskaga sii joogo meesha hadda madaxweynihii iga horeeyayba waa joogay ana waa joogayaadaa iska imaan doonta marka taas horta halkaasay ku dhamaanaysaa anigu waxaan qabaa Puntland shaqo badan baa iyada ruuxeeda u taal waxaa la rabaa inay howlaha Soomaaliya ka socda iyo waxa Soomaaliya ka socda door bay ku leedahay kaalin inay ka qayb qaadato oo si positive uga qayb qaadato laakiin shaqo weyn oo gudaha baa u taala anigu waxaan qabaa barnaamijkii doorashada oo Puntland laga bilaabay meel fiican buu marayaa Puntland waxaa laga rabaa dawladeeda iyo dadkeeda barnaamijka in la sii wado xagga ay xamar iyo waxa ka dhacaya waqtiga badan oo waa inuu galaa gudaha waa inuu galaa doorashada Puntland anigu waxaan qabaa xoog in la saaro sidii loo sii horumarin lahaa laga shaqeeyo waxaan kaloo qabaa anigu qadarow Puntland ruuxeedu dib la'aan ma aha inkastoo aan ku waafaqsanahay hadda wanaagii badnaa uu qadar sheegayay haddana aniga waxaa ii muuqda Puntland ruuxeedu inay dhibo inay jiraan dhibahaas ruuxeeda in wax laga qabtaa la rabaa dadkii Puntland dhistay 98 waynu la soconaa hadda khaatumo inay maamul samaysatay halakan ay baran maalmaha kan shirar baa ka dhacay waxay ku dhamaanayaan anigu ma aqaan marmar baad waxaad oran karaysaa war Puntland armay u baahan tahay in mar labaad dadkeedii la isugu yeero iyada ruuxeeda oo bartalo la isweydiiyo 26 sano ka bacdi markii Puntland soo shaqeynaysay dadkii dhistay in mar intay isugu yimaadaan ay misna wax isweydiiyaan aniga waxay la tahay arrin meesha ku jirta weeye marka anigu arrimahaas aan isleeyahay waa loo baahan yahay in laga shaqeeyo istaraatiijiga oo ay ka mid tahay doorashooyinka oo ay ka mid tahay dib u eegista Puntland dadka wixii tabasho qaba oo tabashadooda la qanciyo arrintaas xagga xamar ka soconaysaana hadda sida ugu fiican waxa weeye labadaas sano oo Xasan Sheikh ku hadhay hadduu horta dawladihii hoose horta hal la qabto doorashadii dawladaha hoose baa ka horeysa June baa loo ballansanaa lamana qaban taas waxay muujinaysaa kuwa kale inaan la qaban doonin marka labadaas sano waxay iskaga dhamaanaysaa firig dabadeetana hal sano ama hal sano iyo bar kaleeto aniga qiyaastayda buu odagu iska sii joogi doonaa sidii farmaajoba u joogay dabadeedna teendadii afisyoone bay iskaga dhamaan doontaa san qiyaasta waayahay aan soo dhaweeyo Dr. Naciimo arrinta Axmed Saciid hadda ka dhawaajiyay u dambeysay oo ahayd Puntland inay danaheeda gudaha ku mashquulsho oo aysan arrimaha xamar wardiye ka noqon maxaad ka dhahaysaa adigu khadar walaal waa mahadsan tahay qodobka waxaan ka leeyahay in Puntland horta Puntland waxa u muhiimsan in hadda doorashadii madaxweynaha waa dhamaatay wixii kale oo haday jiraan wax cabasho ah oo ay tirsanayaan siyaasiyiin mucaarada way jiraan in madal weyn la qabto oo madasha la isugu yimaado oo markii doorasho dhacdo cabasho iyo qooga isdiidanana way timaadaa laakiin sida aan horay u sheegay anigu hadallo horaan aan ku sheegay waxa weeye siyaasiyiinta mucaaradka ah oo Puntland mar walba waxay ku amaanan yihiin markii doorasho dhacdo oo madaxweyne la doorto waa la isu hambaliyeeyaa wax diidma ah iyo dagaala oo hor leh ma bilowdo horta Puntland arrintaas waa la rabaa inay xaliso waa arrin siyaasiyiinta mucaaradka ay sheegtaan arrimaha Soomaaliyana Puntland waa u muhiim in arrimaha Soomaaliya ay ka shaqeyso waayo Puntland waxay ku leeyihiin dowr muhiim ah arrimaha Soomaaliya dastuurkan qabyada markii la qorayay waa tii Garowe iyo Garowe la qabtay
puntland xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya tiro fiican bay ku leedahay sanadka tiray ku leeyihiin waxay ku leeyihiin oo horay usoo maray madaxweyneyaal kasoo jeeda reer puntland baa hogaanka villa soomaaliya hore u qabtay mas-uuliyiin kale waa ay u tartameen oo waa ay raadiyeen puntland waxaan anigu aaminsanahay inay dowr weyn ku leedahay in soomaali ay isu keento oo nabadeynteeda ay ka shaqayso waa maamul goboleedka waxa weeye ugu amnisan markii la eego maamul goboleedka soomaaliya waa maamul goboleedka waxa weeye ugu horumarsan oo hadda doorashooyin qof iyo cod ay ka dhaceen laakiin waxaan rabaa inaan qodob yar aan ku daro khadar oo ah doorashooyinka waxaa soo laalaabatay arrin ah puntland maxay ku diidayaan doorashooyin qof iyo cod ah inay soomaaliya ka dhacdo horta waxaan rabaa siiqada hadalka ah in la bedelo shacabka reer puntland ma diidana doorasho qof iyo cod ah inay soomaaliya ay ka dhacdo waxa laga hadlayo oo ay madaxdu ka hadlayaan madaxda puntland hadda u joogto oo mas-uuliyadda u haysa shacabka reer puntland ay u doorteen iyo qolyaha hadda xamar jooga baa waxaa laga wada hadlayaa broseska doorashada qof iyo cod seebay ku dhacaysaa qof iyo cod weliba dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta ah majority ugu badan populationka soomaaliyeed oo 70% ka badan ah waxay rabaan qof iyo cod oo anigu waxaan aaminsanahay dadka aaminsan baanahay in xafiisyada dowladda oo dhan dhalinyaro loo dhiibo oo weliba waxaan aaminsanahay in loo dhiibo dadka daljoogta ah oo muddo dalkan jooga dhalinyarada inay ka shaqeeyaan xafiisyadaas oo qabtaan waayo iyagu waxay aaminsan yihiin meel kale ay ku noqdaan oo ay tagaan ama dal kale ay aadayaan ma jiro wax badan bay qabanayaan baan isleeyahay laakiin waxa laga hadlaya waxa weeye broseska doorashada u dhacayso waa se iyo dalku amni ma yahay doorasho ma ka dhici kadhaa iyo guddiga doorashada qabanayo walaalayaal inagu waynu ognahay wadamo badan oo afrika ah baa doorasho qabta madaxweyneyaashooduna ilaa iyo dhowr 30 sano xafiiska fadhiyaan ama dhowr 40 sano qof iyo cod baana qabanay dhahaan waxa arrintaa keenayna waxa weeye waa guddiyada doorashada marka iyagu ay magacowdeen oo ku shubasho noqonaya oo madaxweynihii markaa soo celinaya arrinta laga hadlayo waa taa qodob kale aan ku darayna waxa weeye puntland doorashadeeda qof iyo codka anigu xog badan baan ka haya xogta aan ka hayana waxa weeye qof iyo cod guddiga ugu horeeyay horta waxaa magacaabay madaxweyne cabdiraxmaan faroole waa ogeydeen xeerarkii wixii dhan waa la qoray sanaadiirta markii la geeyey degmooyin ka mid ah deegaanada puntland qayb waa la gubay dad baa ku dhintay guddiga ku xigay waxaa magacaabay madaxweyne cabdiwali cali gaas anaa xubin ka ahaa guddigaasayto caqabadaha nagu yimi waa socon waayeen guddiga ku xigay oo saddexaad waxaa magacaabay madaxweynaha hadda xilka haya madaxweyne siciid cabdullaahi deni sorry doorashadii waa la qabtay 3 degmaa la qabtay kadibna 30 degmaa la qabtay 3 ugu dambeeyna hadda la qabtay waqti bay qaadatay in la qabto caqabado badan baa soo maray caqabadahaas baan Soomaaliya maanta doorasho inay ka dhacdo kuwa iyo kuwa ka waaweyn baa hor yaalo anigu waan isleeyahay si looga gudbo way adkaanaysaa ama muddo waqti bay qaadanaysaa tan kale aan walaal ku darayna waxa weeye doorashadii puntland marka ay dhacday oo degmooyinkii dhammaadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma soo hambaliyeen ra'iisul wasaare xamse cabdi bariyana ra'iisul wasaare xamse cabdi barana uma soo hambaliyeen dadka reer puntland ma garanayo marka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu anigu waxaan dhihi lahaa colaadu ma wuxuu u qabaa dadka reer puntland mise waxaa colaadi ka dhaxaysa mas-uuliyiinta hadda xukunka haya xukuumadda puntland intaasaan kusoo gabagabeyn lahaa walaal waa mahadsantahay waay dhegeystayaashaan rabaa inaan fursad siiyo inta aynaan u gudbin qaybaha dambe iyo gabagabada iyo xalka 84 ayay dhegeystayaashu kasoo wici karaan si toosa ayaa u dhegeysanaysaan waa barnaamijka maanhadal oo idinkaga imaanaya daljir garowe soo dhaweeyo dhegeystaha ugu horeeya magacaaga iyo halkaad joogto waayahay dhanka farsamada ayaan rabaa inaan aado iyo dhegeystaha ugu horeeya oo aan idhaahdo soo dhow barnaamijka maanhadal ayaad dhegeysanaysaan toos ayuu idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee garowe xarumaha daljir oo dhan baad naga dhegeysanaysaan iyo internetka soo dhow magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso magacaaga magacay waa maxamed sool deegaanka magaca maxamed hore ugal waad la socotay barnaamijka waa ka xumahay maxamed oo magacalay inooga soo wacay waa uu ka go-ay laakiin dhegeystaha xiga ayaan siinaya soo dhow magacaaga iyo halkaad joogto anaa diyaare khadar horta aad baa u mahadsan tahay waxaa wakiil waan kaada mahad celinayaa barnaamijkan quruxda badan guud ahaan farsamo yaqaanadana waa kaada mahad celinaynaa barnaamijkan waxa waaye fududeeyey
martidana dhammaantood waa salaamayaa si gaar ah wasiir maxamuud wasiirka wasiirada waxaa aad u foolxun oo dhibaato ah oo shame ayuu ah wasiiradii shalay ansixiyey in doorasho wadanka ka dhacdo in hal qof aan lahayn oo barnaamijkan uusan kasoo qayb qaadan anagu waxaan leenahay haddaan shacabka reer puntland nahay xalfad bay ahayd xalfad qado ma ahayn wax lagu ansixinayo waxa waaye doorasho qof iyo caada waa wasiiro qado iska qadeeyey dabadeedna xaafadoodii aaday waxay kutusaysaa in wasiiradu jeesnimadii ay ku ansixiyeen inay la yimaadaan anaguna su-aalo weydiino ay la doodaan cidda kasoo horjeeda oo dee barnaamijka uu noqdo positive iyo negative marka lala yimaado intaas waxa uu axmed sheegay in siyaasiyiintu ay xoogaa kii hore ay ka hoos ka tahay oo aysan mucaarad badan uusan jirin dee shalay waa la ogaa madaxweyne farmaajo anagu waan taadeersanay laakiin madaxweyne deni baa naga kaxeeyey marka madaxweyne deni waxaan leeyahay maadaama barnaamijkan uu aada u dhageysanayo barnaamijkan uu yahay heer caalami madaxweyne adaankaada fadhinaa xasan kursiga ka qaad sidii shalay farmaajo aad kursiga ugu qaaday barnaamijkaadina bilow saasaanu leenahay wasiir dirir aad baan u salaamayaa waxyaalo badan buu yidhi waa qabanay oo wasiir Naciime xitaa su-aal baan weydiin lahaa laakiin mawduucu ma ahayn hadda mawduuc Puntland Soomaaliyan kala hadlaynay aad waa mahadsantiin waa mahadsan tahay xaawo garowe naga soo wacday dhegeystaha xiga ayaan siinayaa fursad soo dhawow magacaaga halka soo hadlaysa alo ha soo dhawow dhegeyste magacaaga halka joogta khayr cawlo waa ku salaamay adiga waliya martiirso waa Cabdulle Axmed Boosaaso haye horogo doorashada laga hadlayaan filayaa waliya federaalka iyo sida ay wax u wadaan hay horta sida hadeer wax loo wada marka indhaha saxan lagu fiiriyo ma qumana ma garad oo sida aan ka warqabno guriga seeska laga dhisaa kor in laga dhisiyaa moodaa marka arrin qumana ma arrintaan sida wax loo wado baarlamaankii baa wax la yiraahdo sacdoolay laga dhigay wasiirada mahmaha waxay tahay beesada kunbaa u weyn kunbaana u yahay koonfureedka isticmaalaano inuu fulintii iyo dejintii iyo wax la yiraahdo garsoorkii baa asagu noqdaa moodaa cidna uusan wax u ogoleyn yaa noqday dee sida maamulka macnaha madaxweynuhu wuxuu wado wax la yeeli karo ma aha sida waa arrinaadu ciidamadii amnigii ma jiro dhaqaalihii baa wax la yiraahdo meesha ka baxay arrimihii dibadda wax la yiraahdo say aragtay tahay waddanku intuu joogay baa dad badan hunguriyeeyeen sidii loogu wareejiyey bilo kooban isagoon joogin baa waxa la yiraahdo wax kasta la leeyo ciidamadii 3 meelood marka loo qaybiyo qaar la didiyay qaar waxa la yiraahdo laga warqabaa amnigii baa laga warqabaa meeshu yahay in ciidamada dhaqaaqa kale laga warqabaa waxyaalihii dhacay baa laga warqabaa marka sida wuxuu wada hadda arrintaas arrin quman maahan baarlamaankiina ayagaaba xilka iska qaaday oo ilaala iska dhigay marka wax la yeeli kara iyo wax dadka wadanka xilbaan dadka ka saaran waxa quman in wax la yiraahdo la cashilaaba hadii ay cashileen xilka laga qaadaa quman ilaa kartiga isku cashilee isagu ma laho hadeer u xusul duubaya inuu iska sii joogo leeyahay doorasho qof iyo aan qabanaya wax la yiraahdo aan amnigeedi lahayn dhaqaaleedi lahayn tirakoob lahayn wax la yiraahdo aan lahayn socon karin marka waxaas oo dhan wax badan baa ka horeeya inuu wadada saxda ku soo noqdo dadkana la tashado baa haboon way waa mahadsantahay dhegeystaha u dambeeya ayaan fursadda siinayaa si markaa martida aan ugu soo laabto soo dhawow dhegeyste magacaaga iyo halka aad joogto walaal ka cariyo maxamed sal waa go'ay hadda magaali baan joogaa haye maxamed horowgal walaal ka cariyo horta fikrada martida iyo khabar iyo dhammaanteeda aad baa salaamaya inta aan gudaniyo waran aragtida markaan ka hadlo arrintaas xasan sheekh iyo xukuumaddiisa keentay waxay la tahay waa sanadkii buuqa ahaa waxay la tahay waxa aan wax kale macnaayo aan ku jir garan mayo doorasho la qaban karo afar tuuro oo amisan waadiyeyso doorashada laga qaban karo ma muuqato waxaas aan u garan waayay dadka wax garatada ah waxaas isugu aruuriyay oo mas'uuliyiinta uga dhigay ama golaha wasiir ha aadeen ama xildhibaan ha ahaadeen noocaas oo aan oran karin tilaabadan dalka ku dumaya George madaxweynuhu meesha taliyay baan u garan waayay waa nin aad u naas badan antaada iyo mas'uuliyiinta mas'uuliyiinta waa maasay maxamed oo naga soo wacayay deegaanka magacle dhageystayaasha intaasaan uga gudbaya martida ayaa barnaamijka usoo laabanaya mar kale ayaa rabaa inaan nicmo ka bilaabo xalka iyo tala bixintaada ugu dambeysa maxaad dhihi lahayd walaal xalka waxaan dhihi lahaa khadarow
halka ugu muhiimsan waxa weeye horta dastuurkii la yiri waa la bedelay iyagu waxay dhaheen waa dhammaystiray laakiin waa bedelid cutubyada ay bedeleen dhammaantood in xukuumadda federaalku ay dhahaan waa ka noqonnay iyo waxaa loo baahan yahay in wada hadal la isugu yimaado oo dhammaan maamul goboleedada iyo madaxweynaha dowladda federaalkaba ay wada hadal isugu yimaadaan lagana wada hadlo sida saxda ah oo doorasho lagu qaban karo oo dalku doorasho uu ku aadi karo lagana wada hadlo amniga iyo difaaca qaranka sidii loo qaban lahaa iyo sidii dalka al-shabaab looga saari lahaa golahan wasiirada heerkan ay dhaheen xeer baanu ansixinay oo doorashooyinka aan iyaguna ay ka laabtaan baarlamaankana aan xeerkan la horgeyn kolleyba haddii la horgeeyo baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waa iska ansixinayaan oo waxaa moodaa xildhibaano yar oo tiro kooban oo aad u yar maahe inta kale waxaad moodaa inay ka shaqaynayaan danihii iyagu ay meesha ku joogi lahaayeen madaxweynahana uu mar kale muddada ku joogi lahaa markii waqtigiisu ka dhammaado anigu intaasaan oran lahaa waxaan kale oo aan ku darayana khadra waxaa muhiima oo aan ku darayaa in federalismku waa noocyo badan yahay muddo hadda 20 sano ana nooci la qaatay ama nooca federalismka ay Soomaaliya qaadatay ilaa hadda ma cadda oo xaalku ilaa hadda waa mindi ku taag oo mar walba buuq baa taagan in la cadeeyo bulshada Soomaaliyeedna oo dhamina ma fahansana federalism muxuu yahay dhalinyaro badan baan fahansanayn siyaasiyiin badan oo waxaad arkaysaa fagaarayaasha doodaha fadhiyo oo aan fahansanayn federalism muxuu yahay oo qodobbo muhiima oo ku saabsan xataa aan taabanayn in bulshada lagu wacyigeliyo saasaan rajaynayaa insha Allah midnimo baan u rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo inay dhacdo doorasho waqtigeeda aan dhaafin ku dhacda 2026 bisha May 15keedii baa madaxweynaha la doortay 15keedii baan rabaa in madaxweyne kale oo cusub dalkan loo doorto xildhibaanada golaha shacabka iyo sanataradana ka hor la doortay baa loo baahan yahay si dalku uusan firaaq u gelin iska horimaad uusan u dhicin wixii yaraayan ku gacanta ku haynayo ku rafaadaynayo wasaaradii ha ahaato ama golay baarlamaanka ha ahaado kicintoodii iyo dhisidoodii lagu baabaay intaas oo sano inaan dib loo celin oo buuq uusan ka imaan markasta oo dib loo celiyo waa markasta oo dalka amnigiisa iyo horumarkiisu uu dib u dhaco amaadsantahay walaal waayahay doctor ashkar soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantahay khadar waa mar kale anigu haddaan talada ugu dambeeyay ama gunaanadkii aan kusoo dhawaado marka hore annaga puntland waxaan u baahannahay inaan horta aan 4 qodob fulino si federaalinku ama federalismku naftiisa u hirgasho kow marka ugu horeysa federaalku waxaad u malaysaa inay tahay fikrad waxa weeye dheeftiidkeedu ay ku adag tahay bulshada Soomaaliyeed ama Soomaaliyeed guud ahaan in fikradaasi dadka loo suuq geeyo puntland laba goorba federaalnimada way muujisay waa markii ugu horeysay goboleedkii ugu horeeyay Soomaaliyeed baa noqotay markii xigtana dawladda goboleedkii ugu horeysay oo doorashooyin golayaal deegaan qabata loona fadhiyo hadda kuwa kale inay dhameystirtaan labada goorba federaalintu way muujisay laakiin sida guud ahaan muuqata waxa weeye fikradii sida loo baahnaa looma suuq geyn sidaa daraaddeed waxaan talo ku soo jeedinayaa hadda ka horna aan qoraallo ku sheegay in la sameeyo machadka daraasaadka federaalinta Soomaaliya oo ay buta hormuud u noqoto si bulshada Soomaaliyeed loogu sharxo fikradda federaalnimo tan labaad waxa weeye matalayaasha aan dirsanayna annaga aan u dirsanayno heer federaal ha noqoto golihii waxa weeye baarlamaanka labadiisa aqalba golaha shacabka iyo golaha saraba ha noqdeen kuwa ka turjumaya bulshada yeesan noqon kuwa inta loo soo magacaabo ama loo soo doorto inay qof u codeeyaan dabadeedna meesha lagu ilaawo inaysan noqon baa la rabaa ay noqdaan dad federaalnimada ayagu aaminsan oo aysan noqon dad laga leeyahay ajanda ah inay codeeyaan kaliya wixii kale oo difaaci federaalnimada iyo difaaci dowladnimada aan macna ka lahayn oo hadda saa u jeedo baarlamaankii Soomaaliya labadiisa aqalba way ku yar yihiin xildhibaanada reer Puntland ee sharxi kara ama difaaci muwaaqifta Puntland sida dhabta ah qodobka saddexaad markaan u nimaano qof kastoo fikradda leh asaga laga rabaa in uu fuliyo fikradiisa haddaan tusaale u soo qaadano madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariistay dowladda Soomaaliya in ma aragtay villa Soomaaliya la furo xilligiisa ayay hirgashay waayo Puntland ayaa wuxuu ku bixisay dhiig iyo lacagba
si dowladnimada ay u shaqayso fikraduna ay u socoto way amaanan yihiin labadii madaxweyne ay xilligoodu la qoray dastuurka waa Sheekh Shariif iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole runtii amaan iyo bogaadin ayay mudan yihiin waayo labadoodii ay isfahmeen oo arinta ay wadeen waxay ku midayeen dhinacaasi amaan waxa kale loo baahan yahay sida daraadeed isfahan in loo furo bulshada annaga reer Puntland ma ahan inaan qol isku xirno oo aan annagu iskoobno waa inaan laabteen u furnaa kuwa kale waxaan xasuustaa anigu labadii xukuumadood hadda ugu dambeeyaba Cabdulle Cali Gaas iyo madaxweyne Saciid Deni waa la shaqeeyay waxaan ahaa wasiir Cabdulle Cali Gaas xilligiisii waxaa jiray dalad ama ma aragtay madal ay lahaayeen dowlad goboleedada hadda waxaad u malaysaa Puntland mowqifkeeda kaligeeduna ku soo aruuray waxaan u baahanahay inaan sameysano xulufooyin qodobka afraad oo ugu dambeeya aan ku soo goonanada waxa weeye federaalnimada annaga Puntland naftigeeda waa inaga muuqataa waa muujina waa sax golayaal deegaan baa la qabtay laakiin fikradii federaalnimo waa inay hoos u daadagtaa sida iyo muuqata fikradda federaal waxay noqotay fikrad ku eg qabaa'ilka dhexe qabaa'ilkii hareeraha goboladii hareeraha fikrad ay suuq geeyaan ma aha ama siyaasiyiintoodu ay ka hadlaan waa fikradda federaal Soomaali oo dhanna waxa cilad u yeelay waxaan oran karaa waxa weeye fikrad aan dowladnimadu waa wax u fiican dowladnimada federaalka laakiin dadka u doodayay Puntland ayaa waxay u bateen qabiilkii dhexe oo waxa la waayay qabaa'ilka hareeraha oo fikradda u doodayay waa in la helaa fikraddan federaalka dad wada xambaarsan oo fikradaan aaminsan oo Soomaali oo idil ka gala markii la arko annagoo Puntland oo isku duuban oo fikradda gadayna Soomaali oo idin waana la qaadan kartaa waa maasanta qadar waayahay waa maadsantahay Axmed baa rabaa inaan soo dhaweeyo Axmed Saciid Umar soo dhawo hadar waa maadsantahay dhowr noqdaan rabaa inaan taabto horta federaalka iyo federaaleynta ana waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed baynu ula midnahay haddii reer Puntland nahay fikradana hadda Soomaaliya waa qaadatay maxaa jira wadanka maamul goboleedyaal laga dhisay federaal ku salaysan isla markaasna magacii dawladda Soomaaliya wuxuu noqday dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa meesha ka maqan waa dabaqaadii iyo hirgelintii baa meesha ka maqan taasna eedeeda waxa iska leh dadkii Soomaaliyeed oo liidka sheeganayo madaxnimada soo maray ayaa eeda iska leh ama dawlad federaal ha joogeen ama mid gobol ha joogeen in nidaamkii federaalka la hirgelin waayo oo dastuurkii lagu dhaqmi waayo sideedana hal aan ogaano haddii inuu reer Puntland nahay fikraddan federaalka waa leeno ka horeeyay kontomaadkii lixdamaadkii dadkii keenay oo u mudaharaadi jiray oo federaal fadaan ma oran jiray horta reer koonfur galbeed bay ahaayeen laakiin inagu runtii markii dawladdii Soomaalidu burburay ayaynu ahayn dadkii dib u soo nooleeyay oo maaragtay ka shaqaysiiyay oo bilaabay oo maamul goboleed federaal ku dhisay oo Soomaalidii kalena la qaadatay ilaa in bagaati ilaa iyo hadda shirarkii garowga ka dhacay oo hadda ashkar ka sheekeynayay intaasba waxaynu ka ahayn hormuud baynu ka ahayn Puntland waxay ahaan jiray alliance bay Soomaali ku lahaan jiray dad maaragtay fikradda ay Puntland qabto la qaba baa jiray oo la socodsiiya xogaa waxa moodaa hadda inaynu si cidla yuuro nahay oo si cidla ugu soo dhacnay taas horta aniga dhaliil ii muuqato weey midda kale anagu inta markaan taa kaga baxo aan qabaa waxa weeye arrintan dawladda Puntland waxa laga rabaa si positive ah oo mucaaradnimo ku salaysan inay la timaado qorshe wadanka Soomaaliya 2026 doorasho uga dhici lahayd sidii inay ku qanciso ummadda kale oo Soomaaliyeed oo sidii halkan shirarka loogu qaban jiray oo ay u ahayd forum dawladda federaalka lagu mucaarado anu hadda forumkii wax ku dhacay baan aqoon waayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waagii hore waa firfircoonaan jiray hadda xoogaa waxa moodaa inuu maaragtay hawlahaas ka seexday marka ma aqaan waxaas waxa motivationkiisu ahaa haddana uu maaragtay u hurdo iyadoo aan dhibaato jirin waxa la rabaa Soomaaliya arrinteeda waa la wada leeyahay xasan sheekh 2 sano waxa dhay 2 sano in la yiraahdo 2 sano iskale laakiin wixii ka dambeeyaan ku heshiina si doorasho u dhici lahayd waa arrin u taal Puntland kaliya uma taal dawlad goboleedyada kalena waa u taala laakiin Puntland inay la timaado alliance iyo dad hawsha kala shaqeeya waa loo baahan yahay midda kale oo aan kaga baxayaa waxa weeye hadaayo waxaan idin Puntland dib ha isu eegto sababta aan u leeyahay waxa weeye 26 sano inuu jirnaa 26 sano waa soo shaqeynay meel fiican bay waxay noo marayaan
haddaaye gabadha naciima warkayga waxay u fasadhay siyaasiyiin anuu siyaasiyiin kama hadlin waxaan ka hadlay waxa weeye dadkii iyo gobolladii puntland dhistay kuwa hadda maamulo kala samaystay kuwa hadda maamulo kale hadal haya xaqiiqda in la iska indhatiro ma ah puntland bay wax ka dhisteen waxaa la rabaa puntland ama dib in la isugu soo celiyo sidii 98 oo puntland la wada leeyahay oo dadku wada dhistaan la helo ama haddii tala kale la hayo dadka maamulada samaystay iyo dadka hadda hadal haya oo puntland ka tirsan tala kale haddii la hayo in qorshe la isula yimaado sababta aan u leeyahay shir weyn ay puntland u baahan tahay maanta taas weeye anigu waxaan qabaa in dadkii puntland dhistay 98 ay shir isugu yimaadaan hadday arrinta soomaaliya wax iska weydiinayaan hadday tan puntland wax iska weydiinayaan tala looga baahan yahay dad tala keeni kara oo caqli keeni kara oo sidii dadkii waagii 98 isu yimi oo kala ah oo aan oranayn halkan aad bariiskii badsatay iyo anigu waa yaraystay aad iga cunno badsaday aan ka hadlayo qadiyad ka hadlayo baa loo baahan yahay inta la isu yimaado puntland inay iyadana ka taliyaan soomaalina waxay ula tegi lahaayeen oo kula shaqayn lahaayeen oo nidaamka federaalka iyo wax la midana ay tala la taaban karo oo ummadda ka gadmi karta inay keenaan baa loo baahan yahay ama intaasaan kaga baxda waayahay wasiir hal daqiiqo waqtiga oo inagu yar dadka inoo soo koob waa ka xumahay horta hal daqiiqo inaan ka badsadaan doonayay muxuu ahaaye hase ahaatee muxuu hadduu waqtiga ay tahay si xalka loo gaadho oo arrinta soomaaliyeed meeshii ay maraysay loogu soo noqdo hore dowladda federaalka ee hadda jirta waxaa laga rabaa inay dastuurkii dadka ku heshiiyey inay kusoo noqoto labo inay soo celiso guddiyadii maaragtay dhamaystirka dastuurka ka shaqaynayey in muxuu ahaayey baa loo baahan yahay iyo inay kusoo noqoto nidaamka federalismka oo ay inkirtay hadeer oo ay maaragtay dastuurkeedii tuurtay oo ay wada shaqayntii joojisay oo ay wada xaajoodkii joojisay oo ay awood qaybsigii joojisay oo deeqihii iyo horumarintii maaragtay deeqihii caalamiga ahaa arrintii maaragtay kaalmada caalamiga ee bani aadamnimo dhammaanteed ay siyaasado isticmaashay waxaasoo dhan inay meesha ka saarto dal la wada leeyahay oo iyadu madax u tahay oo nidaamkii maaragtay mandatekii dowladnimo iyadu haysato federaal ah awooduhu qaybsan yihiin wada xaajoodku shuruudo leeyihiin sida maaragtay qodobka 54 ee dastuurkii ku-meel gaarka uu qorayay sida qodobka 55 oo maaragtay kala qaybsanaanta awoodaha uu qirayo dastuurka ku-meel gaarka waafajinta muxuu ahaa qodobka 132 dastuurka maaragtay ku-meel waafajinta qodobka 4 dastuurka Puntland waxaasoo dhan dowladda maaragtay federaaliya oo states leh oo wada xaajoodka iyo wada qaybsigu shuruud leeyihiin inay sharciga ku soo noqoto si 2026 loogu gudbo doorasho la isku raacsan yahay oo sharciya loogu gudbo ay iska dayso geed sarawaabka guriga aan tiirar kala ahayn ay doonayso inay saqafkiisa hawada taagto saqaf hawada istaaga ma jiro saqaf lagu ku istaago ayuu u baahan yahay waxaa laga rabaa inay sharciyada u soo noqoto waxaa laga rabaa inay dalka ammaan ka dhigto oo ay dadkii Soomaaliyeed oo meel walba lagu xasuuqayo ciidankooda ilaa dadweynahoodii la leynayo baa mas'uuliyadda ugu weyn ka saaran tahay bal taa horta ha ka shaqeyso intaasaan oran lahaa dadka reer Puntland dhamaantood oo hambalyeynaya waa la socotaan hadeer muddo aan ka yarayn 2 week madaxweynaha iyo wafdi aad u ballaaran oo wasiiro iyo baarlamaanba ku jiro maartay gobolka Nugaal qaybtiisa koonfur bari ilaa iyo gobolka Mudug bay marayaan adeega dadweynaha tabashadooda gaarka ah waxyaabaha adeega ay ka tabayaan inay aragtidooda ka hadlaan madaxweynaha iyo wafdiga la socda arkaan waxa jira adeega si dadka u gaaro maxaa loo baahan yahay maxaan qabsoomin maxaa la rabaa in la qabto baa la marayaa insha Allah waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland inta ay Soomaali maartay u fikirayaan waxaan iska dhacan toodana inay sii wadaan sidaas oo kale gacanta la isoo qabto aad iyo aad baad u mahadsantihiin martida dhamaanteed waa salaamaya khadarna waa ku salaamaya adiga iyo bahda daljir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برامجكي من هذا ونجا انت اسكو اركنا برامج كلا مده جمعها ضمبه نبدغلي. شينيو رجا ضيعها يسدي حديها دشينيو رجا ضيعها يسدي